madaxda sarsare ee maamulka Khaatumo iyo waliba golaha aqoonsha maamulka Khaatumo maanta shir isugu yimid magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen guddiga abaaraha ee maamulka Khaatumo guddidan oo ka kooban 9 xubnood ayaa halkaasi waxa magacyadooda ka akhriyay wasiirka hoggaanka maaliyadda ee maamulka Khaatumo Maxamed Cabdicasiis liiska ku yaala waa laba guddi oo kala sareeya oo guddi heer Khaatumo ah iyo guddi heer gobol ah oo guddiga distribution ee waxa lagu kala galay marka hadaan magacyada guddida 9 oo raggan idin muuqda aan halkan ka akhrino magaca koowaad waxa weeye Mukhtaar Cabdi Cashuur Mukhtaar Cabdi Cashuur Aadan Barre Ciise Sheekh Abdulrahmaan Xaaji Mahad Yuusuf Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax Caaqil Jaamac Ibraahim Cabdi Bile Caaqil Yuusuf Xaaji Maxamuud Cali عبد الفتاح محمد جامع محمود محمد علوشوق ياقة حسن ران سقالك حمود وحوية سقالك حمود جدد الصراحة جدد عبارة هدي أن راعينه شقة شوب ديسكريبشن كذا ما قاب كيوش شقينا يعني وشروع ده يكوش شقينا يعني sidoo kale isnaalkaasi waxa ka hadlay madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Ali Khaliif Galleero isagoo halkaasi ka soo jeediyay khudbad aad u dheer oo ku saabsan abaarta xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanadani guddidan maanta halka timay magacyadooda la inoo akhri doono guddidaas waa guddi heer Khaatumo Sool Sanaag iyo Cayn intaba waa matashaa inta u dhalatay ee deegaanka ah iyo inta abaartan iyo qolayska hadda taagan uu keenayna waa wada joognaa mas'uuliyad baana naga wada saaran waxay guddidan hawshoodu noqon doontana bal waa la qodobayn doonaa laakiin waxaynu xaq inagu ah mas'uuliyiin haddaan nahayna saaran inaan isdiyaarinno geed dheer iyo mid gaabanba u fuulo sidii dadka loogu gurman lahaa taa weeye tan guddiga qaranka ama loo sameeyey 9 qof waa 3 gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee ka kala socdaan guddida abaaraha ee Khaatumo waajibaadka shaqo ee guddiyada abaaraha ee Khaatumo qodobkiisa labaad guddidan oo ka kooban 9 xubnood waxaa laga soo xiray dhammaan deegaamada Khaatumo Wasadeem Cabdullaahi Abdi waa Bari TV Buuhoodle